is Abdi Noor and I am magacaygu waa Abdi Noor waxaan ahay Soomaali qaxoonti ah oo ku nool Nairobi Kenya waxaan helay oo ku guuleystay bakhtiyaa nasiibka deganaanshiyaha Mareykanka bishii May 2013 Have you ever dreamed of weligaa ma ku riyootay in aad bakhtiyaa nasiib ku guulaysato oo aad nolol cusub ka bilowdo dalka fog Me and my friends we went back aniga iyo saaxiibaday waxaanu ku noqonnay hoygii internetka ee aanu ka buuxiyay foomka ka qaybgalka bakhtiyaa nasiibka Yunus iyo Faarax waa magacyada saaxiibaday waxaana soo raacay koox kale oo aanu saaxiibo nahay wadamada reer galbeedku dadka waxay ku riyoodaan inay helaan bakhtiyaa nasiibka toddobaad walba la ciyaaro kaas oo lacag badan lagu helo haddaba malaayiin qof oo ku nool caalamka intiisa kale waxaa jira bakhtiyaa nasiib kale oo ay dhowraan kaas oo ah ku guulaysashada deganaanshaha Mareykanka ee loo yaqaano green card. My name is Yunus and Abdi is my magacaygu waa Yunus Abdi waa saaxiibkay waxaan eegay inaan helay bakhtiyaa nasiibkii mana aanan ku guulaysan I put my confirmation number I put my date of birth waxaan geliyay computerka numberkii la siiyay waxaan kaloon qoray taariikhda dhalashadayda dabadeedna waan gujiyay oo dhag baan siiyay waxaan niyadda ka lahaa Ilaahay oo muraadkayga yeel waxay iga taagneed meel xun everyone is checking qof kastaba wuxuu eegayaa nasiibkiisa sida uu noqday so there was a few mudayir ayaanu aamusnayn ilbiriqsi ah Abdi by the time he get war uu ku farxo ayaa u soo yeeray Abdi yeah it writes you have waxay soo qoreen waxa lagu doortay in la sii eego codsigaaga hey cheers wow waa farxad and that was really waxa ii ahayd maalin qurux badan but did you have any idea laakiin maalinta miyaad garowsanayd jidka dheer ee weli kaaga harsanaa in Mareykan aad u safarto to answer that question no su'aasha jawaabteedu waa maya hello Liam. Hey Abdi, how's it going? It's going good. How are you doing? Good, very good. waxaan wada xiriirnay Abdi bila yar uun markii uu helay ogeysiinta in codsigiisa la eegayo waxaanu samaystay blog ama bog internetka ah oo uu ku qoro higsigiisa waxaanu si joogto ah ugu xiriiri jirnay telefoonka iyo Skype anigoo London jooga iyo isagoo jooga magaalada Nairobi waxaanan duubi jirnay sheekadana dhex marta Abdi ilaa yaraantiisii intii Soomaaliya uu joogay waxa uu ku hamiyi jiray in Mareykan uu noqdo oo dhalashadooda qaato do you want to listen to this walaada dhageyso waxaan saarayaa hees ay qaadaan Sahra Ahmed iyo Ras waa hobaladii hore The reason I like them waxa heestan aan u doortay waa hees aan guriga ku dhageysan jiray markaan yaraa aabahay ayaa jeclaa heestan we call him Abdi America waxaan ugu yeeri jirnay Abdi American wuxuu iska dhigi jiray sidii madaxweynihii Mareykanka George W Bush sanadkii 2000 waxaanu ku dhihi jirnay Mr America kaalay hey Mr America come here ma isleedahay calaf iyo nasiib ayaad ku heshay tigidkan I believe if I was a lucky man I wouldn't have been through wars waxaan rumaysanahay haddii aan nin nasiib badan ahay sooma mareen dagaalo iyo nolol adag sababtoo ah dagaal ayaan ku dhex dhashay nabad ma xusuustee dagaal baan xusuustaa xaalado badan baa jira oo aan ku sigtay dhimasho waxaan isugu yeeri karaa badbaade ee meehi nasiiblow I should call myself a survivor than a lucky guy waa hubaal in nidaamkan bakhtiyaa nasiibka deganaanshaha Mareykanka uu yahay arrin la yaab ah iyadoo ay adag tahay sida wadamada reer galbeedka loo yimaado ayaa haddana Mareykanku sanad walba 50,000 oo qof uu siiyaa deganaansho lagu doorto bakhtiyaa nasiib kuwaas oo Mareykanka kana shaqaysan kara kuna noolaan kara haddaba ma fududa inaad noqoto muwaadin Mareykan ah xitaa kuwa sida Abdi oo kale tigidhka guusha haleela qof kasta oo ku guuleysta bakhtiyaa nasiibka waxa laga qaadaa waraysi ay la yeelato safaaradda Mareykanka taas oo dad badani ay ku dhacaan Abdi oo arrintan sharaxaya waxa uu yiri that's the day that they have to decide waa maalinta lagu leeyahay hambalyo waad guuleysatay waa tan fiisihii Mareykanku ama lagu oranayo maymay fiisihii waa lagu diiday waayo warqadda dambi la'aanta ma haysatid laakiin Abdi aad ayuu isugu kalsoon yahay oo ma gelin faldambiyeed waana nin wax bartay dibka kaliya ee jira ayaa ah weerarada al-shabaab ee Kenya waxay keeneen Soomaalida in sidii hore sumcaddoodu aanay ahayn qaxootiga Nairobi deganna qaar ayaanba dibadda u bixi karin it's actually an evening here imika waa fiid halkani sida caadadu ahayd waa mugdi dibaddu laakiin aad iyo aad bay u fiicneed inaan maqlo eedaanka
laakiinse masaajidka ma tegi karo. masaajidkuna waa dhismaha nagu xiga. runtii kuma dhaco inaan masaajidka tago. leo waxaan kuu sheegayaa waxay igu eryadeen faashash iyo dhagxaan 2 saacadood ka hor. Abdi, you're kidding. I'm so sorry. cabdi ma igu ciyaaraysaa? waan ka xumahay. waxaa dhacay waxa weeye masaajidkaan siri tag oo gurigayga oo 10 tallaabo u jira. dabeetana waxaan arkay ilaa 50 dhalinyaro ah oo ku hubaysan dhagxaan iyo faashash. dabeetana way eryadeen iyagoo dhagxaan igu tuuraya. waxay ahaayeen Kenyaati. aniga cabdi ahaan imay weerarin, laakiin Soomaali ahaan ayay ii eryanayeen. Did you expect to die? inaad dhimato ma ka baqatay? haa, waayo waxaa jirtay maraan is-idhi way kuu dhammaatay, waayo waxaan arkay koox dhan oo soo weerartay. muddo kadib ayaan cabdi iswacnay. waa tan sheekadiina dhex martay aniga iyo isaga habeenkii ka horreeyey intaanu safaaradda Maraykanka tegin subaxii. berri waxaan ku soo noqonayaa qolkan anigoo wax walba burburin doona oo aan faraxsanayn ama aanoo faraxsan. siday doontaba ha u dhacdee inaan wax burburinayo waan hubaa. markay u yar tahay laptopkayga ayaan feedhi doonaa. Good luck, Abdi. nasiib wanaagsan cabdi. waxaan rajeynayaa inaan anigoo faraxsan kula soo hadlo. I think you will be smiling. waad That's qosli right. doontaa, waan hubaa. mahadsanid, waad mahadsan tahay. While I was brushing my teeth this morning, saaka markaan toosay ee aan cadayanayay waxaan fariin qoraal telefoonka gacanta ah ka helay cabdi. waxayna ahayd: waan ku salaamay, war aad u xun ayay siiyeen. warqadda cas ayaan haystaa. fiisihii waa lagu diiday ayay leeyihiin. waa maalintii adduunka igu xumayd. waa run, shalay maalintii igu adkeyd bay ahayd. when you went into the embassy, was it like you? ka waran safaaradda markaad tagtay, sidee wax u dhaceen? waxaan la kulmay gabadh Maraykanka madow ah. waxaan noqday nervous, lugahay gariiray anoo taagan. warqad ay hoosta uga qortay inaan caddaynta shahaadadu dhammaystirnayn ayay ii soo gudbisay. haddaba waxaa cabdi uu ii sheegay in warqadda caddaynta ee shahaadadiisa aanay ahayn tii nuqulka rasmiga ahaa. haddii warqad ay kaa qaldanto waxay u dhammayn kartaa rajada aad leedahay. maalmo kadib cabdi waxa uu helay war la yaab leh. way ii soo baxday. yaa allah, mar kale ayaan eegay. alla way ii soo baxday. waa wixii aan raadinayay. arrinku waxa uu ahaa cabdi lama diidin gebi ahaanba, ee waxaa lagu yidhi soo dir nuqulka asalka ahaa ee shahaadadaada, kadibna arrinkaaga dib ayaa loo eegayaa. arrinkiisi waa la eegay, waana la oggolaaday. farxad weyn iyo dhool caddayn ayaa wejigayga ka muuqatay. weligay sidan oo kale uma farxin, weligay abid. markii aan la xidhiiray cabdi, qofka ila hadlay markan ee ii jawaabay ma ahayn cabdigii qaxootiga Soomaaliga ahaa, ee waxa uu ahaa cabdi Maraykan ah. This is Abdunor. I am in Yarmouth, the state of Maine, United haa, halo, waa cabdi nuur. waxaan joogaa gobolka Maraykanka ee Yarmouth. ma kuu sheega waxyaabaha igula yaabka badnaa? waa ice creamka ama gelato. weligay maan jeclayn. waxaan u haystay waxay ciyaalka iyo haweenku uun cunaan, laakiin iminka carruur baan dib u noqday. haddana waxaan ka baqayay inaan ku naaxo, laakiin maxaa iga galay aan cayilo. weligayba waan dhuubnaa oo caata ayaan ahaa. dan kama lihi inaan naaxo. Leo, I don't care, Leo.